runta oo kaliya sheegayo runta oo dhammaystiran sheegayo waxaan run ahayna aanan sheegayn dhakhtar aad tahay sooma jaamacadee ka baxda undergraduate jaamacadda banaadir sanadkee 2016 okay postgraduate ma samaysay yes okay maxaad ku takhasustay suuxdinta iyo la tacaalidda xaaladaha adag okay halkee ka qaadatay takhasuska jaamacadda SBU loo soo gaabiyo oo Salik Primary University iyo Digfaar Hospital Salik Primary University ku taala Istanbul ku taala qormay bilowday marka takhasuskaaga 2017 qormay soo dhameysay 2021 adiga iyo Dr. Cabdulhamid isku xilli ahaydeen ma isku xilli bilownay laakiin hal sano ka hor aan dhamay 4 sano waa aniga takhasuskayga asagana 5 sano warqadan loogu warbixinayo laguna cadeynayo dhimashada Luul Cabdilcasiis adaa qorsama dhakhtarka qoray magaciisa ku saxiixan waa residentigayga ama ardaygayga oo seniorka ugu horeeya gacantiisa ku saxiixay laakiin ana joogay habeenkaas adaa joogtay okay taariikhda ma tuna sheegi kartaa waxay dhimatay 2 bisha 9 AM saqdhexe ya 2 bisha 2 ay dhimatay saacadana waxa dokumentiga waa kaalmaysan kartaa dhib malaha 6:50 daqiiqo dhimatay sababta dhimashadeeda maxaad ku qiyaasteen marka maadaama adiga qaybta ICU-da ku jirtay ama mas'uulka ahayd sidoo Dr. Cabdulhamid hore u sheegay qofka markuu safiir baan noqdo oo 90% uu jirkiisu gudan yahay mortality badbaadada ama rajada badbaadada waxay ka yartahay 10% macnaheedu 90% ka badan dhimashada u badan tahay qofka markuu gaaro 90 degree marka sababta dhimashada keenaysana waxa leedahay waa dabka waa dib ka dhashay dabkaas jirkeeda sida daran u gubay meeshana waa ku caddahay safiir baan gubnaashaha daran sababta koowaad ah inta ay istaalka ku jirtay suurtagal ma tahay in caabuq jirkeeda ka dhashay oo sabab u noqon karo dhimashadeeda gubnaashaha laftirkeeda sabab u ah caabuq inuu imaado sababta ah shaqada maqaarka uu qabto jirkeena oo waxa kamid ah inuu ka difaaco infectionka inuu jirka soo galo laba waxa kamid ah inuu u ilaaliyo biyaha jirka ku jira marka labadaas sabab la isku daray waxay keenayaan labadaas maqaarka markuu meesha ka baxo gubto qofku wuxuu nugul yahay labadaas inuu infection kiisa ku soo galo maadaama difaaci koobaad uu ka baxay meesha jirkana uu ilaashan waayo biyaha ku jiray jirka uu si fudud uga baxo oo qofka dhiig pressure-kiisu aad hoos ugu dhaco okay goobta lagu hayay ama lagu baxnaaninayay bacteria inay timaado ama infectiono ay ka dhalan karaan suurtagal ma tahay ICU-deena guud ahaanteeda ka hortag ahaan waxa uu yaalo inuusan qof soo gelin horta kow si looga hortago infection inuu imaado labo ICU dhexdeeda waxa ku sii dhaxtaalo laba qol oo loogu talagalay dadka isolation loo yaqaan dadka sidaas oo kale gubtay oo dhala ah oo ayaga bis la geliyo bukaan kale aan la gelin si looga hortago infection inuu si fudud ku gaaro saddex qofka u shaqeynayna markastaba inuu xiran yahay dhar oo asaga bukaanka inuu infection ay u gudbo ka hortagayo gacmihiisa inuu sterile gloves ugu jiro dhar loogu talagalay oo nadiif ahna loo xiro si infection ugu marka intuu isbitaalka sameyn karay waa sameeyay already laakiin maqaarkii oo infectionka meesha celinaysa oo ka maqan taas qofka si fudud inuu wax fudud infection uga qaado keeni karto marka dhalay ku jirtay ICU ku jirtay dhalayna hadana kaga sii jirtay